Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa qaybtii saddexaad baan arkaynaa. Qaybtan saddexaad markay website-ka la galayo qof walba ciwaankiisa ku soo geli. Markuu gala kadib qaybtan dashboard-ku geenayaa. Dashboard-ka markuu geeyo hadduu hoos u tago wuxuu arki deegaan walbo iyo dugsiga uu leeyahay iyo tirada maanta uu khadka facility uu soo geliyay iyo percentage ahaan waxay kor noqonayso. marka deegaankeena Soomaalida 419 dugsi 98 dugsi baan gelinay 2.38% baan waqti xaadirkan maraynaa. Oromiyo kale 26,814 dugsi ay leeyihiin 5 dugsi bay ka marayaan. Marka waxay ka dhigan tahay eber 2. haddii deegaamada la eego kuwa fiican kuwa aan weli wax bilaabin way iskugu jiraan. marka percentage-ka kuwa 50% ku dhow baa jiro Harar iyo Southwest Ethiopia ay ka mid tahay deegaankaas. marka innaga si performance-geena aan kor ugu qaadno waxaan u baahannahay in caawa shaqo badan aan qabanno. shaqada badan ee qabanaya tilmaan in loo baahan yahay yara dareeno meelaha qaarkood. marka berri kuwa 50%-ga maanta maray berri waxa laga yaabaa 100% inay buuxiyaan. deegaamo badan saas oo kale inay u buuxiyaan. innagana sidaas oo kale waa inaan u buuxino. sane meesha lagu gaadhayo bisha tobnaad in wax dhiman aynan jirin baa loo baahan yahay isla xisaabtan adagna aan samayno. haddii aan schoolskaan sii tagno school walbo waa la eegi karaa. tusaale ahaan halkan school haddaan yara buuxino kale tusaale ahaan kan kolchano biyo gelintiisu no baa ku qoran no baa laga dhigi karaa hadduu yes yahay yes. adeega inuu bixinayo inuusan bixinaynin no maadaama ay ahayd standardkiisu meeshuu marayo. haddii biyo dheeri loo baahan yahay inta loo baahan yahay. electricity-ga sidoo kaleeto iyadana saasaa loo buuxin. waxaa kaloo la samayn karaa adoo 46 shay inaad buuxisaan baa loo baahan yahay. 46 haddii aan xabad u yara fiirino mid waa biyaha dugsiga uu leeyahay, mid waa korontadii, mid waa suuliyadii macallimiinta, suuliyadii haweenka macallimiinta, gabdhaha ardayda ah, wiilasha ardayda ah, kombiyuutaradii, internetkii, laboratory-gii, shaybaarkii biology, shaybaarkii chemistry, shaybaarkii physics-ka, pedagogical center-kii, classroom-yada qolalkii wax lagu baranayay, primary school lab-kii, ICT-gii, class resource center-radii xarumihii resource center-rada ahaa, MHM room-kii. MHM marka la leeyahay waxaa laga wadaa qolalka gabdhaha caadada markay iska bedelayaan ay isticmaalaan iskuulka dhexdiisa. xafiiska maamulaha hadduu jiro, xafiiska maamul ku-xigeenka hadduu jiro, qolka shaqaalaha ay fadhiisanayaan hadduu jiro, qolka muxuu ahaa administration office xafiiskii qaybta maamulka, staff room-kii, qolka muxuu ahaa store room-kii, qolka bakhaarka, departments office departmentyada kala duwan ee dugsiga haddii xafiis ay leeyihiin. school feeding hadduu quudin ay ka jirto hall ay wax ku cunaan, hall ay ku kulmaan haddii jirto meeting hall, sportiga ciyaarihii, school feeding, school fencing hadduu dheer leeyahay dugsigu, ramp waa meesha muxuu ahaa special need-ka ay wax ka fuulaan kuwa gaari gacanka ku socda wheelchair-ka, combined desk kuraasta ardayda ku fadhiistaan isku xidhan. haddii kuraas kale ay jiraan kuraastii macallimiinta, sabuuradihii, shelfi waa bahalkii muxuu ahaa mirfashkii, cupboard qaanadii wax la saaranayay, printeradii, televisionkii, photocopy machine-kii, laboratory chemical shaybaarkii laboratory-ga qaybta chemicalada, facility kale oo laboratory hadduu jiro, science kits-kii waxyaabaha isku xiran cilmiga science-ka loo isticmaalo, radio-kii, supplementary materials-kii oo buugta tixraaca, pedagogical center materials qalabka muxuu ahaa pedagogiga loo isticmaalo sida maabkii wixii la mida. marka MHM materials haddii qalab caadada ay wax iskaga bedelaan haweenku uu yaallo, special education needs wixii la xiriira muxuu ahaa waxbarashada baahida gaarka. marka qodobadan la buuxinayo yes iyo no baa la tegi. marka u dambeyso safe baa la dooran bay ka dhigan tahay. markii mid walba safe aad doorateed buuxiso wuu kuu safe garaysmayaa, white-na wuu noqon sida tan oo kaleeta bay ka dhigan tahay. halka u dambeyso approve baad dhihi kartaa. approve tusaale ahaan xagga hoose hadda markaan tagno
hashan aan saa u jiidano kor ku noqono waxaa kuu soo bixi approve markaad ku dhufato wuxuu ku approve gareynayaa approved body marka facility-ga uu kaa baxay bay ka dhigan tahay qaybta macallimiinta laydinkama baahno waqti haadirkan studentska laydinkama baahno laakiin waa xog aad diyaarsanaysaan basic informationka waa magacii iskuulka iyo meelihii lagu qorayay maamulaha telefoonkiisa xogahan inaad buuxisaan baa loo baahan yahay maamulaha telefoonkiisa hadduu line jiro email hadduu leeyahay kuwan inaad buuxisaan waa xogaha loo baahan marka basic informationka iyo facility-ga labadaas waa qasab in xogahooda la helo sida ugu dhaqsaha badan marka caawa ka shaqaysta berito wax dhiman iyona jirin tilmaan waxaad u baahataan diyaar baan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin